nin waxaan ku weydiiyey kalamaan ma dhegaysatay war naga tag oo maxaa dhacay mar dambena su'aali ma weydiin kartid sabab kalamaan ma dhegaysatay markaad leedahay maxay sheegtay ma tiraahi horta sheekadan kalamaana markii aad maqashiin how maxaa tiiriya may erti midii miidaysay maahino arhoy reer kalamaanow hees cusubaan idin wadaa maanta jagsi miya nin saluuga aabbihii hooyadii ma saacido war heeska saas maa naga dhagaysa gurigaa dukum taakum waaye war habaarka iska dhaf samada mar bay furan tahay war samadi weliya mal hiirle guriga gubudan oo dhagansay warka yaa habartu xaggee igu hoyayay hadduu gurigii ka gubto war iirka kahooy tooba fadaas heeska ay suubiyey abdiqaadir duryar lanlileeye laxankana ay basaarey baafo may bagaaday dhambuuki iyonay dhagan waryaabla waaya bal soo daay war heesanaad noo qaadaysaa ma jarmal baa mise oo soodaani markaa soomaaliya awtonigamada leaniyada ee oo dhagan soo heesta war waa beri dhammuuke iyo hibadha kooka maxay u qaadi waayeen war dhagaaga dhugaan dhowyin oo dhagansoy isugo inan yahay isugo sirwalkii baa iga dhacaaye awalowsa sinta gaarine isugo inan yahay isugo ya erye haboodiyena may arday ikoro inan yahaw ikoro cad eeddibaasoo ku laato maqaarkii baan iska fiiqo ikoro aawaan imaan ka tah war abwaan dulyar iyo baafo ma waxaasay suuq geeyeen war dulyar iyo baafo dhakuuke iyo dhabookaha qaadaa iga daran war kuwaas horey waxay u qaadeen abbaaya kaala iyo shanle iyo abbowa kaalay shaahiga cab nin walooba allaha sug war ma dadkan xigmadoodu noocaa noqotay ayaan annaguna ictiraaf ka sugaynaa waxaa hore loo yidhi nin aanbaday halkii u aada waa ula ekooneed war nimayow marka hore dad waaweyne hadday isu yimaadaan waa inay wax kala faa'iidaan ummadduna waa inay wax ka faa'iidaan ilaahay idinkama dhigo horta marka ugu horraysa baarlamaankeenoo kale ayagaa inta dooda kala tagee xigmadna aan laga heline marka kale waxaan idin dhihi lahaa xornimo ma ka maarannaa dhammaan ma mididinnaa maandeeq waa taagodlana miyaan midi raacinnaa war haddiiba intaas leeka gaabiyaas intaasaan ku soo koobaya hooyaa nasiibadinmaynka dar wayti horta nimayo abwaanada waan kala bartay intaasaan ku soo koobaya kuwa dhaha xaasidiin waay horta baarlamaankeenna tawfiiqda allah waafajiyo waa markii labaad oo fariin qoraal lagu xirayo gudoomiyihii baarlamaanka oo South Africa jooga wuxuu fariin qoraal ku sheegay baarlamaanka 27 bishii hore in la xiray wariyo naftiyoosay hadalkaas ka weeleen laakiinka furfuraana ay kiinkiirhiirnay baleeray nimayo anu waa yaabana baarlamaankii hirshabeello maamul goboleeda aba diiday in fariin qoraal lagu xiro hal marahe baarlamaankeenna federaalka isuu ku yeelay in laba jeer lagu xiro fariin qoraal waryaha baarlamaan hirshabelle ama federaal ha ahaadee wax baarlamaan cadar jawaari kama dambaynin war runtabaan may baa kaa suusiday jawaari min fadlakum aamusa nidaamka ilaaliya nidaamka billaahi calaykum nidaamka iyo erijari war nimaya war ma haysiine gudoomiye maday mursal dalka markii uu ka tagay dibadda u tago ayuu hadlaa waayaaba inta kale ma aamusan yahay xildhibaan nidaamka ilaali warkan iga dhegayso mikrofoonkana waa ka xiran yahay hadda u dambaysa isagoo shir uga qaybgelaya koonfur afrika wuxuu yidhi doorasho qof iyo cod inay dhacdo 2022 waa lama huraan khilaafka dowladda iyo maamul goboleedyadana dastuurka ayuu salka ku hayaa waana qasab in lagu kala saaraa war maday mursal markuu dibadda tago xurriyadu helaan u malaynaya qof dalka jooga meel loo soo jira ma yaqaan warnamiyow hata ka hor lanko islaantiska adkaayteelaari eed ambugu jarti geeg wala taliya hibilow isku reeba laari islaantun yeewa gornyan fuulanga daba gadiyey waana roori dad odayaal oo magantiyo gali islaanti hadaba gali madiya hadaba roorasi dadkiisu magantiyo gali ma yareen war yeray roog yeelaari dadkii reedsi oo usul maykileya edeb dorantasi anan kulaayi jiray ogsandaani kulaayi shibka eraysan reed gudoomiga mayga alay koofiga giirku u reed madis maro kalaame warnimayo waxa la yiri reer waliba markuu oday magacawday qaafila asna maamulka u dhiib xildhibaan warmooga asna lacag ku maamuus madaxweyne aan jirin asna yiri adaa mudan prime minister kala mida mabda iyo ujeedada asna mood wasiirada arduu macalinkood yahay marqaatina ka wada dhigay aan maya ku soo celin shacabkiina murugiyo mugdi loogu talagalay lama
shaawur keligiis warniya waan ku jeednaa muraadaad leedahay doctor muuse iyo maxkamadda goormaad hortagaysaa war xaggeed ninka muuse ugu dirtay ma guri la'aan baa haysa war waa u naxariistay haddii aan xumaynayo suutaan u diri lahaa war ninkii wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda david hell anoo la hadlayaan xala ku riyood wadda heel ma la socoyey maya yuda hell ayay isla hadleen war adinkaa heel iyo wax kaunba ahenna maqla waryaaye war heer muhumashaayalka darday maynin kuu maayo hayta waxaan ku idhi ma nin duul shisheeyo dana iga lahaayoo dibadaha ka yimidoo soo galay dalkaygo deeqdii kalluunkiiyo macdantii daldalayoo deexdiiyo baddaydii haraayada dilaagiyo sun ku daadinaaya darsayoo ogaado halistayda dagatiyo sida lay daldalay iyo daannada igaadhiyo dulmigiiyo shirqoolkiiyo ka dhamqaday xumaanto digninii sidaa tah mase dan kalead u socotaa wadda hel warkaaga waxaan u fahmay eelka kii dhigay uu dacwootoy war maya waxa waaye yaa laga dacwooda yaase loo dacwoodaa dawlad kale ma joogtee waranamay baan goraday weliga muddo iinka daawootoy warnimayo anigu shalay waxaan la sheekaystay nin askariya waa gardarreed war magadarni inaga dhegaysto waxaanan ogeyn baan ka ogaaday semberi askari amniga sug la yidhi oo dalka ka ilaali la yidhi dad aadan aqoon waa dembiile mar kasta wuxuu yidhi sababtoo haddaad daysana dembiilaa tahay haddaad dishana dembiilaa tahay dadkana kama taqaanid waxaad ilaalinayso horta nimayo waxaa la yidhi timir laf baa ku jirta askariga laftiisu hadduu daacad yahay qofka hadduu deeyo hadduu dembi ku gelayo hadduu dilana dembi ku gelayo maxaa u diiday inuu celiyo warwarmaysinaa idiin warramo musharaxiintii jubbaland waxay dhaheen doorashada kama qaybgelayn ilaa la fuliyo sharuudaheenna sharuudahana waxaa ka mid saddexda odayaasha laga rabay in la joojiyo guddiga doorashada in la bedelo meesha doorashada lagu qabanayna in la bedelo war waxaan maqli jiray sheegle laga baqay marka waxaa ii soo baxday musharaxiintu inay marmarsiyo raadanayaan oo axmed ka baqayaan oo aysan taageero ku filan haysan marka nin laga adag yahaba waa eetami jiray meelimayba idinka muuqate diidda ii doontaba doga ahmed midoow xaaladda jubbaland haatan waxay taagan tahay ama lay dooray ama daadku iqaad in doontaa had iyo jeer dadkan uu heella yahay colaaddu la howlyar tahay madaafiic hawsariyo gantaalkiiyo hoobiyaha dalaartii lagu harqiyo habeenkii laysku miro hareeraha meydku yaal heshiyana lagala yahay inaan kaa haajiriyo hayaankaagama socdee dalkaygoo lama huraadunbaayo hantiya haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo war adeera war ma haysaane madaxweynihii somalilan muuse biixi cabdi xildiid sacuudiga wuxuu ka casuumay inuu xashka yimaado war xidka farliha meeskaasuma jirna see walan wadada wuxuu yidhi baasaboorkaygii somalilan waa inan ku imaado sidii madaxweynena waa in lay soo dhoweeya sacuudiguna wuxuu iskaga haraaciyey baasaboorka soomaaliya qoladana jaarka nahay soo qaado kaasaanu naqaanaaye markaa 3 wallabille iyo xela furkiiba ugu maro inuu xashkaba uu u nacaba baasaboorka horta qawdhanow taasi waa mas'ale khilaafiya xajka ilaahay baa waajibiyey baasaboor in lagu xiro aadistiisa culimada sacuudiga iyo boqorkoodaba ay ka soo xigteen war adeer war ma haysta berigii horeba waa loo lugan jiray war ma haysiina Donald Trump iyo dawladii Mareykanka cudurkeeniyo kala ku dhacay war ma burbureen ma qaraxyaa ka dhacay wadooyinkii miyaa la xiray war waad walataan dhageysta waxaa iskhilaafay madaxweyne Trump iyo madaxweynaha maamul goboleedka California marka hadda maanta meesha madaxweyne Farmaajo Axmed Madoobe kala joogan ayay iyaguna kala joogan ma xiriirkay u jareen war ayaga dawladda federaalka lama yiraa dastuurkoodana qabyo qoraalka lama yiraa ee United States la yiraa amaan badan war yaa tirada koowa ka bilaawdaas ma taasal lama leere war waxaadnaan taas ula yaabin 2016 kadib wixii la doortay Trump bay wada ahaayeen war meel baad u jeedaa waana ku jeedaa war nimayo magaalada Beledweyne dadkii ayagoo shirin Soomaali haystay baahi beerka dhulka ku hayaana la yiri war reer Beledweyne oo beero iyo webi haysta haday baahan yihiin Soomaalidii kala xagee joogtaa war beesadii laga diido shirin Soomaaliya ka soo diiday warka naga dhageysta dadkii waxay leeyihiin haddaan shirin Soomaaliga la soo celin magaaladan waa ka qaxaynaa war dadka ilaahay u gargaaree ganacsato lacagta ayagu soo sameeyay baa ku diiday dadka markay ku wareegtay beledweyne allahayo kadhig guri barwaaqe beledweyne allahayo kadhig beerta raaxada
war ducadan ilaahay abwaan hadraawi kama aqbal miya akadaaytay waan handhowta war waxaa la yidhi waxba hawaalanine nin xil haysta goortii la yidhi doorasho u kaalay cabsi inay la soo daristay baa shacabku moogayne inkastoo ninkii diidi taga cidi ka yeelaynin asagay u taallaa hadduu bixiyo laaluusha soomaalidu cod laba jeer ma jiro ruux ka helaya war tacsidii gudoomiye yirisow kaambayn ay isu bedeshay nagala tag sheekadan war makarofan iyo sameecad maa loo xiray war adeero maalin walba gurigiisa geel baa lagu qalaa war maalinkan si og aqoon markuu noolaa maxay geelu sii waayeen war haddaan la siinaa naga dhawaysa naga taga qayr allah idin siiye waar idinka caada xune ordo naga taga